markana waxaan tagaynaa magaalada Muqdisho ee dawladda federaalka Soomaaliya ayaa dhalinyarada ka xaysa mooto bajaajka waxay u fasaxday wadooyinka qaar oo horay uga xirnaa arrinkan ayaa waxa uu yimi kadib barnaamijyo ay dhigeen dhalinyaradan iyagoo cabasho ka muujinayay dilalka joogtada ee loo geysto dhalinyarada mootada ka xaysa iyo sidoo kale wadooyinkii muhiimka ahaa oo loo diiday inay isticmaalaan dhalinyarada mooto bajaajka ka xaysa ayaa arrinkan aad u soo dhaweeyay iyagoona dawladda ka dalbay in wadooyinka kale ee dhimana loo furo dawladda ayaa waxa ay sheegtay muddo 3 bil ah aan wax canshuur ah laga rabin dhalinyaradan iyagu mootada kaxeeya haddaba waxa hargalka magaalada Muqdisho kaga soo diray wariyaha Haajir Cabdulqaadir Nuur hargal wanaagsan farxi Cabdulla Muumin tan iyo markii dhalinyarada ka xaysa bajaajileyda ay Muqdisho ka dhigeen banaanbaxyo ay kaga soo horjeedeen dhalinyarada ka shaqeysa bajaajileyda oo markaas ciidamada dawladda qaar ka tirsan ay dileen iyo wadooyinka xiran waxay dawladdu bilowday in ay markaas u fasaxdo wadooyin dhowr ah oo ka xirnaa sidoo kale waxa la sheegay in loo fasaxay ilaa 3 bilood inaysan bixin lacagaha canshuuraadka qaar kamid ah dhalinyaradaas oo aan kala kulmay wadooyinka halbowlaha magaalada Muqdisho sida wadada Makka al-Mukarrama waxay sheegayaan in arintaasi ay soo dhaweynayaan isla markaana dawladda ka codsanayaan in wadooyinka harsan u fasaxdo alxamdulillah wallahi hadeer waxaan u maleeyay sidii hore inay dhaanto taasna waxa waay ilaahay ma hadaas u sugan tahay marka alxamdulillah hadda wax saas oo hadan on haysto ma jiraan mararka qaar oo caqabada ay dhacaan waa jiraan wallahi wadooyinka dhan kulli oo wada xirnaan markastana waxa dhici jirtay marka soo shaqo tagno oo shaqada soo aadno in la yiraahdo kala wareeg wax lagu kala wareegaan aan aqoonin laakiin hadda taas alxamdulillah taas waa ka amaan helnay oo hadda kulli dhamaanteen inta badan waa loo soo wada fasaxay guddi waa jira laakiin guddigaas meelo ka shaqeeyo iyo meelo saldhig waa xafiis uu leeyahay marka wadooyinka la fasaxay waxa kamid ah wadada bakaaro kala laga soo galo isgoyska bakaaro waa la fasaxay tarbuunka waa la fasaxay banaadir waa la fasaxay guud ahaan meelaha dhagaxyada la dhigo dhan waa naloo fasaxay maasha Allah waxaan dareenay maxallaha xurriyad aad u weyn in la siiyay waa ka duwanahay baabuurta waa ka duwanahay caasiyaasha ilaahay kuma darnaadee magaalada Muqdisho hadda waxaan isleeyahay 100% askarta waxaan ka helnay tixgelin aad u weyn barnaamijii dhacay maxallaha uga soo horjeednay dilka loo geysto maxallaha bajaajleyda aad iyo aad baano ugu banaanbaxaas uga faa'iidnay dawladuna waa codsigeena way aqbashay canshuurta maxallaha naloo dilay maxallaha loo dilay wiilka bajaajlaha maskiinka maxallaha waa 3 bilood inta wadooyinka xiran yihiin waa la joojiyay waxa kale oo jirta wadooyinka nagama xirmaan sidii hore xaalku waa iska bedelay wadada inay marmar oo maxallaha madaxweynaha iyo maxallaha arrin muhiim ah ay jirto mooyaane si kale nolol kuma hakiyo meel walba waa nolol fasaxay إن شاء الله. markii dhibaato nagu dhacdo kala dooradda kala hadlo horta gudi waa jira baa la leeyahay laakiin bajaajleyda waxaan ku eedeeyaa oo badan aniga aan ku mucaaradanahay waxa weeye ma iska warhayaan la'aan ayaa jirta maxallahay iska warhayaan badankoodu saas darteed la aligeed carqaladaha ay u dhacaan waxa loo baahan yahay gudi in la sameeyo aad u weyn oo bajaajleyda dhan ka warqaba inay sameeyaan meel stationary ah oo maxallaha bajaajleyda ay ku shiraan oo ay guddi ku sameystaan oo ay madax ku leeyeen ay ku kala hoosay kuna kala sareeyo kuna kulma madaxda oo ku gudbiya isbuuc walba caqabada haysata oo la kulma ama wadanka ku soo siyaada wadina ku faraxsanahay laakiin waxaan ugu muhiimsan dilka in laga daabo wallahi loo bixiyay wax kasta laga qabato oo maalin kasta keen jira aan macnaha aan ugu fadhiyo dadku kasta ay furan yihiin kala waxa arkaysa isgoosida qolada joogto ee ciidamada booliiska inay ku leeyihiin lacag nasiib oo dheeraad ay ka qaadaso waxaan ka codsanaynaa inay wali naga qabtaan ciidamada wadooyinka taagan ayagoo waxay lacag nasiib ah dadka ku fadhiyo oo ka mid ah sidii kala wareeg isgoosida iska la qabeen isgoosida wadnaha hore waa tirtiinka sanho wadada barnaayada ilaa isgooska bakaaraha ilaa digfeer wadana ka xiran ma jirto meel walba ka soo geli karnaa laakiin caqabada waxa xilliyeed habeenkii ugu badan tahay inaad soo gudbi karaan